Waxaan kula wadaagayaa 5 caado oo khatar ah oo dhibaato weyn ku haysa ama khatar ku ah qof walba oo dhalinyaro ah oo jira 20 sano. Haddii aad jirtid 20 sano, muuqaalkan waa muuqaalkaagii, waa mid adiga kugu saabsan, waa mid adiga kuu sheegi doona xaqiiqada dhabta ah ee jirta ama ay ku sugan yihiin 20 jiro badan. Haddaba waxaan kula wadaagayaa 5tan caado ee khatarta kugu ah, lagana yaabo inaad hadda ku sugan tahay, oo ay tahay inaad iska ilaaliso. Lambarka koowaad waa qorshe la'aanta. Weligaa qorshe la'aan ha noqonin haddii aad jirtid 20 sano, sababtoo ah mar walba oo aad qorshe la'aan noqotid waa mar walba oo mustaqbalkaagu hog uu ku dhacayo ama mustaqbalkaagu uu ku dambeyn doono mustaqbal aan wanaagsanayn. Haddaba weligaa qorshe la'aan ha noqon, ama shaqee ama waxbaro ama wax un qabo. Haddii aad noqotid qof qorshe la'aan ah oo nolosha iska nool, waxaad ka shallaayi doontaa mustaqbalkaaga dambe. After 10 years ama 10 sano kadib ayaad miraheeda guran doontaa haddii aad noqotid bilaa qorshe adigoo ah 20 jir. Marka ka digtoonow inaad noqotid bilaa qorshe. Lambarka labaad, ha baranin daraagiska ama daroogada. Haddii aad baratid daraagis adigoo jira 20 sano, la soco noloshaada inta ka dhiman inaad ku jiri doontid nolol aan wanaagsanayn, nolol mugdi ah, ama inaad noqon doontid qof taraha nolosha ka dhaca ama qof noloshu ay ugu dambeyn ku soo ridayso wadada halaaga. Lambarka shanaad, ha samaynin xiriirada badan ama ha samayn shukaansi badan. Haddii aad jirtid 20 sano, waa marka qof walba oo dhalinyaro ah oo 20 sano jira uu abateed u hayo shukaansiga ama xiriirada badan. Waa mar walba uu qofku doonayo inuu helo nolol uu asagu niyadda ku haysto ama wax isagu u filanayo, sida inuu helo gabdho badan, inuu sameeyo xiriiro badan, inuu waxyaabo badan ku fakaro. Ogow, mar walba qofku uu jiro 20 sano waa mar walba oo waxay dhahaan Soomaalida hore uu tala ka booday dhahan. Marka talaha ka boodin, waan kula talinayaa iska ilaali xiriirada badan ama shukaansiga badan, waayo wax waqti ah ama ha ku bixinin. Mar walba oo xiriirkaagu badnaado waa mar walba oo waqtigaaga khasaarinaysid, waa mar walba oo aad jaaniskaagii wax kale aad kaga faa'iideysan lahayd uu kaa khasaarayo. Marka xiriirkaagu ha yaraado, kuma lihi waxba ha shukaansanin. Qof baad tahay bini'aadan, dareen baad leedahay, nolol baad u baahan tahay, waxbaad dareemaysaa, waa shukaansan kartaa, laakiin waa inaad limit u yeeshaa. Haddii aadan limit u samaynin, ogow waqtigaagu inuu kaa khasaari doono. Lambarka afraad waa fikradaha khaldan. Mar walba oo aad fikrad khaldan qaadato waa mar walba oo aad khaladaad badan aad ku dhici doonto. Marka haddii aad tahay qof 20 jira, ka fiirso fikradaha aad qaadanayso iyo dadka aad ka qaadanayso, sababtoo ah waxaa laga yaabaa wax badan inay kugu cusub yihiin oo aadan xaqiiqada ka ogeyn. Marka ka fiirso fikrado kuu horseedi doona ama sababi doona inaad khaladaad badan inaad samayso ama inaad ku dhacdo dabin. Lambarka shanaad waa lambarka ugu dambeeya, iska ilaali degdega. Qofku markuu jiro 20 sano waa marka ugu degdega badan yahay noloshiisa, sababtoo ah dadka hore waxay ku mahmaahi jireen 20 jir intuu jiru tala ka boodaa. Miyay ahayd mahmaahdii iga hoos baxday? Mahmaahdaas ayaa dadka hore dhihi jireen, sababtoo ah qofku markuu jiro 20 sano uu degdeg badan yahay, wuxuu u malaynayaa wax walba inay fudud yihiin, wax walba waxay la tahay wax iska basiido oo aad u sahlan. Laakiin markii xaqiiqda la wajaho way ka duwan tahay sidaa. Marka iska ilaali degdega badan, kaasoo laga yaabo mararka qaar inaad ku dhacdid khaladaad badan. Waxaan filayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday haddii aad tahay qof 20 jir ah. Haddaba maxaad nooga haysataa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe noo saarto? Mahadsanid.